وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وندا معلنك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وندا معلنك واجي بريبا أو بحلقا ورابشو واجي بريبا أو بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجبكيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلامتين أرضي ملكستو جوكتان وحسدي ugu horeysay maadada afka Soomaaliga fasalada koobaad ee dugsiga sare cigaal secondary school. waxaan halkan idinku soo tabin doonaa dii la yiraahdo casharradeennii taxanaha ahaa ee inoo socday fasaxa ka hor cashar ka mid ah waana cutubkii maansooyinka. waxa weeyaan casharkii ahaa waxyeelada qaadka. buuggiinan daawacan waxa uu ku yaalaa bogga 40 ilaa bogga 53. intaasoo casharkaas waa cashar ballaaran. waxaa la socda gabay la yidhaahdo Isciil Kambi. waxaan u kala qaybsan doonaa haddii la yidhaahdo laba qaybood. qaybtan koobaad waxaan markaa ku qaadan doonaa inta hordhaca ah iyo gogoldhiga amase araarta gabayga ayaynu ku qaadan doonaa. casharkan wuxuu ka dhexeeyaa ardayda fasalada koobaad 5 fasal 3 hablaha iyo 2 inamada aba uu ka dhexeeya. waayo waxay isku duruus waana imtixaankana wixii halkaa ku jira imtixaankana way ugu wada jiri doonaan. fasalada koobaad oo dhan kuwii aan u dhigi jiray iyo kuwii aan u dhigi jiray labadaba casharkaasi uu khuseeyaa. haddaynu haddaba casharka hore u sii gallo waxyeelada qaadka waa ciwaanka guud ee casharka. waxa kale oo ku hoos jira ama se la socda gabayga Isciil Kambi. markaa gabayga waan ku dambeyn doonaa. waxaan imika ka horeynayaa bal waxyeelada qaadka iyo dhibaatooyinka uu geysto bulshada iyo cidda mar walba ku hawlan ee cunta. qaadku waa cadowga dadka, dalka iyo dakhliga. saddexdaaba cadow buu ku yahay. bal hadda u fiirso. qaadku waxa lagu yiri waa cadowga dadka, dalka iyo dakhliga. dadka cadow buu ku yahay oo dhinacyo fara badan ayuu ka weeraraa. aynu qaadan doonaa waxyeeladiisi waa hoosta ku taxane. dadka si aad ayuu u waxyeeleeyaa. dalkana cadow buu ku yahay oo wuxuu cadow ugu yahay horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo habsami socodka shaqooyinkiisa iyo nolol maalmeedka dalkaba uu ragaadiyay hoos buu u dhigaa. mid kale wuxuu abuuraa khilaafaad fara badan iyo khaaquul aan xalkeeda la heli karin ayuu abuuraa. sidaasna dalka uu u daran yahay. dakhliga qofka ama se bulshadaba kaana hoos buu dhigaa uu wiiqaa oo dhaqaalaha burburka iyo bisaaradaha joogtada ah iyo hanti yaraanta dadka ku habsatay iyo macaluusha waxa ka koowa oo dadka ku keena waa qaadka weyn. markaad haddaba u eegto waxyeelada iyo saameynta taban waxa loo jeedaa aan fiicnayn ee uu bulshadeena ku leeyahay. qaadku waxa uu leeyahay dhibaatooyin fara badan oo la soo koobi karin. haddii laakiin si duuduub ahaan loo eego waxa ka mid ah kuwan hoos ku qoran. waxyeelo dhaqaale ayuu leeyahay. waxyeelo dhaqaale oo dhaqaalaha qof ahaaneed iyo ka wadan ahaaneed iyo ka bulsho ahaaneedba hoos buu u dhigaa. qofka hadii jeer qaadka cuna hantidiisa oo dhan hadduu shaqeeyo iyo haddaan u shaqeynba hantidiisa oo dhan waxa qabo bahalka qaadka leeyahay. qofku isagoo mushahar fiican oo ku fulan qaata yuu haddana u nool yahay sidii qof aan shaqaynin, sidii qof aan hanti iyo dakhli meel ka soo gelin, sidii qof bisaaradaysan ayuu u nool yahay.
bulshada dhan ee meel ku wada noolna dhaqaalaheeda uu saameeyaa dalka guud ahaana dhaqaalihiisa saameyn buu ku leeyahay. oo waxaa la sheegaa sanadkii in ka badan 6 milyan ama ilaa 8 milyan oo dollar inay dowladaha qaadka ku isticmaalaan. intaasi waxyaabo fara badan oo kale ayay u geli lahayd. waqti la qiimeeyay waxa lagu sheegi jiray Soomaaliland inta qaadka ka baxda 3 wasaaradood oo wasaaradaha ugu hawl karsan ee bulshada dhexdeeda wax u qabtay asaasiga ah, caafimaadku ka mid yahay, waxbarashadu ka mid tahay, wasaaradda gaashaandhigu ka mid tahay, miisaaniyadeeda waxa ka batay inta sanadkii qaadka baxda ayaa ka badatay. marka waad garan kartaa waxyeelada dhaqaalihiisu intay gaarsiisan tahay. qofba marka laga tago bulshada iyo dalka iyo qaranka ayuu dhaqaale burbur ku yahay. qodobka labaad wuxuu leeyahay waxyeelo caafimaad oo qofka wuxuu u geystaa caafimaadkiisa ayuu waxyeelaya. waaliyo fara badan buu keenaa, caafimaadka jir ahaaneed buu qofka kharibaayo, ilkaha iyo carabka iyo dibnaha iyo afka oo dhan buu kharibaa, ama teedku qofka ka xidhaayo, qofka qaadka cunaa ma tamriyo. wuxuu hataa ka weeraraa dadka cuna dhasha iyo tafiirta ayuu ka weeraraa. dadka qaar baa qaadka hadday cunaan aan tarmin. caafimaadka siyaabo kala duwan ayuu u saameeyaa. indhaha iyo aragtida ayuu gaabiyaa. qofka hamadiisa jinsi ahaaneed baa yaraata. caafimaadka waxyaabo fara badan, qabsinada iyo calool istaaga iyo ama teed xumada iyo hurdo la-aanta, waxaasoo dhan waxaa keena qaadkaa keena. waxa kaloo qaadku leeyahay waxyeelo qoys. waa la isku soo duuduubayaa dee mid walba waxaa hoos imanaysa intaasoo nooce. waxyeelo qoys buu leeyahay. qoyskuu waxyeelaya. sidee buu waxyeelanayaa qoyska? wuxuu keenaa qoys burbur buu keenaa. oo qoysaska had iyo jeer waxay ku kala tagaan ee isku furaan ee ninka iyo haweenaydiisu iskugu dhacaan waxa ka koowa qaadkaa ka koowa. oo ninku markuu wixii uu soo shaqeeyey sideedii reerka ugu keeni waayo, waxaa imanaysa inuu mas-uuliyad daraa ku imanaysa, inuu mas-uuliyaddiisii gudan waayo. sidaas darteedna mas-uuliyaddii uu gudan waayey ay keento cadho hor leh oo lagu dagaalamo. taasina markaa ay keentay in qoyskiiba sidaa ku kala yaabo. waxa kaloo uu keenaa inuu gudan waayaba waajibaadkii qoyska ka saarnaa, ubadkiisii la socon waayo, haweenaydiisii daryeeli waayo, reerkiisii dayaco. taasina waxay keentaa markaa inuu qoysku baabao. waxyaabaha kale uu keenaa waxa weeyaan waxyeelo amniga ayuu khalkhaliyaa oo nabadgelyada macaaneen ku daaqayna ayuu faraha ka saaraa. oo waxa jabhada ah iyo dhaca iyo boobka iyo maxayba gaar u baxay iyo waxbaa dhexda u fadhiistay iyo waxbaa waxaday iyo tuuganimadu waxaa ku yimaada balwadda qaadkay ku timaado. waxa kale oo qofku marka uu balwaddan barto waxa u fududaata inuu qof dilo, inuu qof dhaawaco, inuu qof xoogo, inuu qof been wax kaga qaado, hadhow la isqabsado. waxaasoo dhanba qaadkay ku timaado. xataa waxa kale oo balwaduhu keenaa inay yimaadaan kooxays xulafaysta oo waxyaabo fara badan sameeya, sida moobilada oo dadka xoog kaga qaadaan, dumarada jandadaha yaryar sitay iyo dadka boorsooyinka jeebka sitay meelaha dhexda loo galo laga qaato, guryaha in loo dhaco, habeenkii la xado, wixii dabka yimaadana dagaal gacmeed waxaasoo dhan buu keenaa. marka amnigana saas uu khalkhaliyaa. waxa kaloo uu keenaa waxyeelo waqtiga ayuu waxyeelaya. oo siduu waxyeelaynaya? qofka bini aadamkaa waqtiguu ka dilaa, uu ka qaadaa. waqtigii uu wax qabsan lahaa ee uu aakhiradiisa iyo adduunkiisaba u shaqaysan lahaa, ee uu qof noqon lahaa jira, ee mustaqbalkiisa dhisi lahaaba, waxaa qaata qaadka ayaa qaata. sidaas darteed waxyeelo waqtina waa uu leeyahay. oo waqtigiiba wuxuu u qaybsamaa inuu raadinayo iyo inuu ku fadhiyo cunayo. dabeedna waxaa meesha ka baxdaa intii uu mustaqbalkiisa iyo danihiisa ka shaqayn lahaa baa meesha ka baxda. intuu reerkiisa u adeegi lahaa baa meesha ka baxda. intuu cibaadaysan lahaa baa meesha ka baxda. intuu isaga laftiisu wax baran lahaa ee uu aqoon kororsan lahaa baa meesha ka baxaysa. marka waqtiga ugu badan qaad baa lagu lumiya. waxa kaloo uu qaadku keenaa buu yidhi waxyeelo akhlaaqeed. qofka wuxuu ku keenaa akhlaaqdiisa ayuu waxyeelaya. oo hadduu qofku ahaan jiray qof xishoodo, dhaqan wanaagsan, ama qof waxyaabo fara badan ka gabado damiir leh, mar alla markuu qaadkaa barto balwaddaasi jirkiisa gasho wuxuu soo baxaa qof bilaa akhlaaqa,
qof aan waxba xeerinayn qof aan waxba ka xishoonin hadduu run sheegi jiray qof beenaala dadka had iyo jeer cay badan oo caaya waxaasuu soo baxay markaa wuxuu keenaa waxyeelo akhlaaqeed buu keenaa waxa kaloo keenaa waxyeelo waxbarasho iyo horumarka iyo waxbarashadana isagana u dhantaalaa oo qofka haddii mar uu balwadaa barto waxna ma barto noloshiisana ma horumariyo bulsha hadday bahalkaa ku ba'naato oo ay laasimto waxbarashadeeduna waa low horumarkeeda xagga mustaqbalna waa zero wey intaas iyo wixii lamidaba qaadka ayaa keena waxaad arkaysaa markaa dhibaatooyinka qaadku inaanay ku koobnayn caafimaad iyo dhaqaale uu xataa meelo fara badan waxyeelo ka leeyahay oo waxyaalo akhlaaqeed marka xataa loo jeedo waxyeeladii diintaa soo gelaysa oo ninku mar hadduu qayilo xataa diin shaqo kuma laha salaada tukada shaqo kuma laha waxyaabo fara badan ayuu qofku ka dhacaa adiga arkaya dadku siday ugu mashquulsan yihiin baa halkan waxaa ku yaala sawirro fara badan oo muujinaya sida qaadka bulshada Soomaaliyeed aad ugu dhexgalay rag iyo dumarba qaar kale iibsanaya oo suuqii iibka jooga oo arkaysa qaar mid ruugaya oo ku faraxsan oo aad moodayso inuu biskud cunayo kuwa iyaguna meel u samaystay ba marfish dhan fadhiyo oo fadhiyo oo iswada hordhigayo hawl galay oo ku faraxsan oo sawirraba ka soo galay dumar iyaguna kala faranayo oo qaarkoodna iibinayaan qaarkoodna cunayaan waxyaabaha mucjisada ah hadee qaar cunaya iyo qaar iibinaya labadiiba waa kuwa beerihii uu qaadku ka baxayna oo kale marka waxay halkaas sawirradaasi noo muujinayaan bahalku inuu bulshadeena gaar ahaan Somaliland uu aad u dhexgalay iyo Soomaali oo dhanba meel ay Soomaali ku nooshahay aan ku sii soconay waxaynu halkan ku soo qaadanaynaa qaybta kale murti Soomaaliyeed nin xikmad badnaa oo Soomaalida qaadka had iyo jeer ka murtiyooda kamid ah ayaa markii uu qaadka u fiirsaday wuxuu ku soo koobay 5 odhahood oo isku habdhaca oo xikmadaysan oo uu ku sheegay qofka qaadka cuna ama badsada inuu 5 sifo yeesho 5 sifo wuxuu ku koobay qofka qaadka cuna ama badsada waxa uu yeeshaa 5 astaamo wuxuu noqdaa buu yeeshaa hamin wal fikirku wuxuu fikiraa ama se uu munajooda sidii ninka waalan uu fikiraayo waxa arkaysa isagoo isla hadlay ninka waalan baa isla hadli jiray ninka marqaasana waa sida wuxuu yeeshaa hurdo munaafiq nacamtii munaafiq waxa lagu sheegaa inuu hurdo xilliyada dadku cibaadaysanayo rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay qofka salaada subax iyo salaada cishaa aan tukanay hurdo ku dhaafto ama se aan xilba iska saarin inay tahay calaamadaha munaafiqa dadka qaadka cunada waxa lagu yaqaanaa salaad subax inaanay shaqaba ku lahayn salaada subax iyo salaada cishaa baa lagu sheegay sida darteed buu wuxuu yiri wuxuu yeeshaa hurdo munaafiq oo qofkaasi jiifkaba kama kaco xilli salaada loo kacayo ma oga sidii munaafiq hurdadii munaafiq lagu sheegay ayuu qaadka qofka ku keenay guudi waxa kaloo yeeshaa buu hataa tacarureed hataa waxa la yiraahdaa dhacda carruurta hadalkeeda iska tirtiraadeen aan macno badan sameyn aan ujeedo badan ku sameysnayn qaarkii hadduu doono ceeb iska yahay tabtaa carruurtu waa hataa ayuu buu isna waa hataa wuxuu afkiisa ku soo dhacay iska yiraahdo waxa kaloo yeeshaa malooliga waxa la yiraahdaa neefka qublaha ee madaleyska waa waliba gamaanka loo isticmaalay ee geeyada ku boodan waxna ka dhalin kaas ayaa la yiraahdaa wuxuu qaadku ku leeyahay qofka ku keena inuu hamoodo waxa la wuxuu hamadiisaas qabanaysaa aanay jirin oo hadii jeer waxyaabaha qoysaska iyo xaasaska burburka ku keena waxa kamid ah ninkii oo gudan waayay hawshii loogu talagalay sawjahaanad ama sawjahaanad gudan weyn oo ka gaabiya ayaa keenay inuu burburo waxa kaloo qaadku leeyahay buu yahay hayn miskiin macnaha bisaarad 24 saacadood oo qofku isagoo hantiila oo laga yaabo inuu bishii qaato $1 haddana u nool sidii waxaan $1 qaado waa jeebkiisu maran yahay carruurta wax muso saacada aan siinin 24 saacadood baahan oo edib ku badan tahay intaasoo sifo ayuu yeeshaa buu intaas iyo in ka sii badan baa uu leeyahay oo laga dhaxlaa qaadka waxayna haddaba ku sii soconay qaadku waa mid kamid ah daroogada marqaanka kiciya daroogooyinka iyo maandooriyaashu way farabadan yihiin
qaarkood waxaa la yidhahdaa waa mirqaan kiciyaa, qaarkoodna waa mirqaan dejiyayaa. kuwa mirqaanka kiciya ayuu qaadka ku jira ee qofka tensionkiisa iyo dareemadiisa iyo wareegga dhiiggiisa iyo habdhaqanka jirhkiisa intaba kor u kiciya. waxa uu dardargeliyaa in badan oo ka mid ah shaqooyinka jirhku qabto. isticmaalka qaadku waxa uu kordhiyaa heerka garaaca wadnaha ayuu kordhiyaa. 1 heerka neefsigana waa uu kordhiyaa. 2 waxa kaloo kordhiyaa heerkulka jirhka. waxa kaloo kordhiyaa cadaadiska dhiigga. waxaana uu qofka cuna ka dhigaa mid feejigan oo dhiifoon buu ka dhigaa. waxa kaloo uu yareeyaa amateedka cuntada. balada waxyeelada qaadkee garaaca wadnuhu kordhiyaa qofka hadii jeer mirqaansan wuxuu halis u yahay inuu dhimashooyinka degdeg ah qaadkaa ka koobo. neefsiguu kordhiyaa iyo heerka neefsiga waxaad arkaysaa qofkii oo iska fadhiya oo xiiqsan oo neeftuuraya. wuxuu kordhiyaa cadaadiska dhiigga. waxa oo qofku haddii isagoo mirqaansan meeli go'do oo u dhiig baxaa qofku oo dhiiggiisa si xawli ah usoo jiro cadaadiska dhiiggana uu kordhiyaa. waxa uu qofka cuna ka dhigaa mid feejigan oo 24 saacadood dareenkiisu kacsan yahay, wax kasta dhibsanaya, wax kasta ka faaloonaya ayuu ka dhigaa. waxaana uu yareeyaa amateedka cuntada oo qofka qaadka cunaa inta fara badan ma qaadi karo. had iyo jeer dadka cunto la-aantaas waxay ku keentaa qofku mar hadduu bilwadaa dhex galo inuu dhuubto oo jirhkiisu naafo oo caatoobo ayuu ka dhigaa. qaadka dadka badsada haddaba dadka badsade ee uu la tago waxa uu ku keenaa saameyn aan wanaagsanayn. saameyntaa waxaa ka mid ah hurdada oo ku yaraata, qaadiro fara badan, isku buuqsanaan xagga maskaxda ah, hamadiisa oo yaraata, waa hamadii jinsigee oo yaraata, caanaha naaska oo yaraada haddii ay hooyadu qaysho. ila hooyooyinka laftooda qaarkood fixiyaan hooyada yara halkaa yara hawleysan ee ku jirta baddaasi ilmaha ay dhashaane miisaankiisu u yaraada. caanaha naaska ee ilmahaasi ka shaqayaana uu yaraada. saameyn fara badan ayuu markaa ilmaha yar ku yeeshaa hooyadu hadday qaysho. ku sii soco. halkan waxaynu ku eegaynaa kimikooyinka qaadka ku jira markii si cilmiyeysan loo eegay ee dhakhaatiirtu u dhaba galeen kimikooyinka qaadka ku jira. waxaa ka mid ah 1 kimikada loo yaqaano katiin ee afka qalaadna habkaa u qoranta. waa maado kimikaad oo laga helo qaadka, waxayna ku badan tahay garaabada qaadka waa inta la tuure. waxayna saameyn ku leedahay xagga maskaxda, waana sababta dadka waalan ee garaabada cunaa uga sii daraan. kaatiintu waxay ku badan tahay intan adag ee la tuuro. inta la cunay carjawda ah way ku yartahay. waxaad dadka had iyo jeer garaabada cuna ayay saameyn badan ku leedahay. waxay xagga maskaxda ayay saameyn ku keentaa oo qofka way waashaa. dadka had iyo jeer garaabada cuna ama xoolaha cunaba, riyaha xataa cuna garaabada cuna, hadday maalin keliya waayaan ma soo hoydaan, waayo waxay saameyn ku yeelataa maskaxda. qofka had iyo jeer garaabadaasi dadka walwaalana cunaana waa sababta ay uga sii daraan buu. maadada labaad ee kimikaad ee ku jirtee sunta ah ee halista ah waxaa ka mid ah baashaa la yidhahda catinon oo afka qalaad marka lagu qorano sidaa u qoranta. waa kimika qaadka ku jirta, waxaanay keentaa mirqaanka iyo firfircoonida. waana tan qofka ka dhigta mid faraxsan oo aanay waxba ka maqnayn. maadadan cimrigeedu waa 48 saacadood. gebigeeduba cimrigeedu waa 48 saacadood, waa 2 maalmood. intaas wixii ka dambeeyana way ka baxdaaba. maadadani waa maadada keliya keenta mirqaanka. waa maadada qofku la qabatimo ee uu had iyo jeer iibsado ee uu qaadka ugu xidhan yahay ee u dayn laayay. waa maadadan haddii 48 saacadood qaadku yaallo waxay ku sheegaan inuu baarix yahay. sababtu waxa weeye maadadana ka baxday oo wax mirqaana oo uu yeeshaa ma jirto. waa maadada qofka ka dhigta mid firfircoon ka dhigta oo had iyo jeer faraxsan oo isagoo waxaan uu cunaya garanaya inuuna fiicnayn, haddana markay baashaasi jidhkiisa yara gaadho ayuu isku qaadanayaa wax halkii ugu sarraysay gaadhsi. aan ku sii soconaya. maadada saddexaad waxaa la yidhaahdaa ambivitamin. waa kimika sun ah oo xagga dambe saameyn ku keenta marka katinontu ka baxdo. waxaana ku habsado walaac iyo walbahaar iyo wahsi, waana tan keenta waalida badan. maadadaasi markay katinontu jirhkiisa ka baxdo waa tii mirqaanka keenaysay ayay bahashani kusoo baxdaa. mar alla marka ay kusoo baxdo qofku wuxuu keenaa ama waxa ku dhacaa walaac
iyo walbahaar isku dhowi labada eray iyo wahsi u warwaraa qofku wixii uu cunay iyo wixii uu sameeyay iyo wixii hawl ku dhacay iyo galay ayuu ka warwaraa waxaasoo lacag cuntay iyo waxaasoo hantiya iyo waxaasoo dhan baa lagu leeyahay maalin walba bahalkan aad cuni iyo halkeed waa kana ka keeni iyo wixii raaya caruurta siin lahayd halkeed ka soo qaban warwar baa kawka ka sii maadada markaa warwarka maskaxda ku keenta waa baasha la yiraahdo anti-vitamin way waa li badan baa ay keentaa qofku markuu su'aalaha fara badan isweydiiyo uu jawaab u waayo marka dambe uu ku dhuftaa waxa kale oo kamid ah maado loo yaqaan alkaloids waa maado midab bila midab ah oo qadhaadh marka dambana isu bedesha waxaana laga helaa buuriga xashiishada iyo kookiinta bal bahashan ee gadaba maadadani waa maado qaadka laga helo waxaan la wadaagtaa waxa loo xashiishada sheegtay iyo khamriga iyo bahasha kookiinta la yiraahdo ee cadcade la isku nidaam sanka laga qaatay Mareykanka iyo dhulka laga helo iyo buurigan anka la dhigo waxa soo dhabay ku jirta waa waxyaabaha culimadu ay mararka qaar kood markay si cilmiyaysan loo eego ay yiraahdaan kol hadii maadadii kookiinta ay xashiishada ku jirta ay qaadka ku jirto sidaas aad xaraan ku yahay qorka qaar kood yiraahdaan marka waa maadooyinka halista ah ee qaadka ku jira ee qofkan caafimaadkiisa iyo jirkiisa waxyeelay waxa kale oo kamid ah neurophotrin waxay shabahdaa kaatinta u egtaa waxaana ku jirta dhiigga qofka cuna qaadka waxaana keentaa firfircooni waana daroogada laga mamnuucay dadka jimicsada ama sportiga ciyaara adduunyada dadka sportiga ciyaara maadooyinka laga ilaaliyo ama jirkiisa laga baaro ee waxyeelada ku keena tana kamid ah neurophotrin waayo qofku waxay ku keenaysaa firfircooni xad dhaaf ah waxa laga yaabaa hadduu orodyahan ahaa inaanu daalin baa xeeqinba orodkii markaa waxyaabaha daroogooyinka aadka looga ilaaliyo ayay kamid tahay qaadkana way ku jirtaa haddaynu sii dhaafno waa liyaha fara badan ee uu qaadku keeno maxaa kamid ah si cilmiyaysan markii loo baaray niman dictori ay daba galeen waa liyaha ugu badan ee qaadku keeno waxaa kamid ah waalida loo yaqaano balmawiya waa miyir qablamood Soomaaliya waa waalida maryaha sidata ee la moodayo fiyuubida la moodayo qofkii oo xaragoonaya oo dharkiisii xidhan oo waxa loo ka qasinaani jirin oo waxaad arkaysaa isla sheekaysanaya adigoo la hadlayaan ku maqlayna ku dhaafsan magacaagii magaca aan ahayn kuugu yeedhaya wuxuu gacanta ku hayo hadduu doono ismoodsiinaya raaraadinaya dadka ku haysta waxaad u sheegtay amaad isku ogeydeen markaas ay ugu dambeyso koodhanaya goormaad tiri ay tamaya afaraha fiiqfiiqaya waxaasoo dhan waa waalida miyir qablamoodka leeyahay waxa kaloo kamid ah schizophrenia waa isku buuq baa loo bixiyay waa waaliyaha ugu xunxun waa qofka oo had iyo jeer maskaxdiisu isku buuqdo waa isku furan maskaxeed baa la yiraahdaa maskaxdii isku furanta oo waxa la wixii maskaxda ku soo dhaca aan kala maareyn karin isku sii dhaxdaysa oo مثلا hadduu ninkaasi dukaan hayo oo kale oo qaadka aad u badsado waalida isku buuq waxay ku keentaa inuu qiimeeyo dukaanka isku qaldo oo wixii ku shilin la siinayna 10 ku sheego wixii 100 ku la siinayna 20 ku siin isku furan maskaxeed waa waaliyaha ajiibka weyn waxa kaloo qofka ku keentaa inuu iloobo waxyaabaha qaar oo uu kala garan waayo in salaadii casr la yadaamiyo inta duhur la yadaamiyo inuu kala garan waayo dadku waxay yiraahdaan oo marqaamo maanta ilaa salaadii casr baan moodayay duhur marqaan ma hay waa waalida qofka ku soo jirta waalida saddexaad ee lagu sheegay waxa weeye psychosis baa waa khalkhal maskaxeed waana khalkhal ku yimaada kala garashada maskaxdii wax kala garanaysay ayuu khalkhal ku imanaya waxaad arkaysaa dadka qaar markay bahalkaasi gaaray marqaamaan gurigoodiiba aan garan karin oo dhaafa maabeen walba guriga ku xiga ayuu garaacaya islaamo xaqanaas buu maalu habeen walba hurdada ka keenay soo gurigiisa ka soo jeed waa khalkhal maskaxeed baa ku dhacay waxaad arkaysaa qof kala garan la soo dadkaynu ka maqli jiray fiyu salaam soo kacayo soo marqaamada iska xarafiyada maraya ayaa xeeradii wax ka dhaxay sirfi ama orka
إن السلام يبي عليكم والسلام ورحمة الله وبركاته وخلخل مسكحيد وحوى نعمتي وهذا كيسا نكيو إسكس عدو حتى مدبع برينو مريتو عقادنو مريبا كيل قرنينو هاد كيسكك لي هو وهدي والوالدة سكود عدو ودادك هريستي ويجرين يشيل البابور كدنتان أما سلتشيو intaas waxa u sii dheer dhaqan xumo u sii dheer waxa soo waaliya waxa u sii dheer dhaqan xumo qofku la yimaado marka uu qaadka badsado xishood la'aan ku timaado oo qofkiyo waxba qarsan waaya dhacayo boobka oo iyaduna timaado sidii wax waalan qofku dadka boobo oo uu caadeysto iyo dagaal joogta ah waa waaliyaha qofku ku yimaado marka uu qaadka badsado sii dhaaf qodobka ugu dambeeya inuu inta ku soo koobinaa waxa weeye maxay diintu ka qabtaa qaadka iyo maandooriyaha dhamaantii waxa lagu soo koobay buuggeena qoray hal xadiisi hal aayad hadii lagu dhaam maxay diinteenu ka qabtaa maxay diintu ka qabtaa qofku uma banaana inuu iska oran karo waxana waa xaraan iyo waa xalaal hadaan uu haynin adilla cad sida darteed diintu maxay ka qabtaa hadii lagu dhaahdo mar walba maxaa laga rabaa daliil sidaas darteed waxa la soo qaatay xadiis rasuulka laga soo wariyay alayhi salaatu wasalaam iyo aayad quraankeena ku taala suuratul maaidah حديث كأنه كون رينا نبي أن حديث النبي قال لي كركي ساعة وح الجو ريين ويلي قفك كذا يجد ونكسن وحولي هاي شركي سيئة شركة عندي كعمل في الشهر قفك ودو نكسن ضد كتصح وح في عنه ما تبرع وحولي هاي أشركة شد كاو شيء هي وضد كتصي هي أشركة عد الله عندي كعمل في الشهر شركة إذا نوحب كله taaka soo horjeedkeeda qofka jideeyay jid xun halkaas balwad soo galaysaa waxa uu leeyahay dambiga jidka xun oo jideeyay iyo dambiga cidii ku amal fasha مثلا de balwad baad bartay dadka qof kasta oo horta balwad aad bartay waa wada xun oo jeexday dambigeeda aad leedahay nabiga kaleey salaatu wasalaam qof kasta oo kaasi si bareed kasta uu kaasi si dhibaatay iyo balwada markuu ku dhaco qaladaadka uu leeyahay dambiga uu qofkaasi ku keentay sidoo mustaqbalkiisa u baabaadana dambigeeda adigu baale oo adigana waa lagu qoray isagina waa lagu qoray waxa kale oo diinteena suubaniqaadka waxay ka qabtaa wax kasta oo ay ka qabto waxyaabaha xun waxa la wixii xun diinteena waxbay ka qabtaa waxay ka qabtaa waxa la wixii wanaagsaneen banaan yahay waxa la wixii xunineen mamnuuc yahay ونفهنا إنه مهلك كفدنا إلهي نوما وقال رسولكيسنا نوما وقال وحيابها حنو دنوا محرمات كي كجرا مركي وحلا حاران تنميني وحلا يسكو حراي شيء فائدة ديسة يحلال نمديسة يشيء فائدة درديسة يحران نمديسة هذا شيء فائدة ديسة كبضة فائدة درديسة وحلال هذا شيء فائدة درديسة كبضة فائدة ديسة أو دب مو يدف بلغة وعينا وحران sidaas darteed wuxuu soo qaatay buugeeno aayada quraanka kariimka ah ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala waxay ku weydiin doonaan nabiyo waxa loo xalaaliyay bay ku weydiin doonaan oo su'aalo fara badan baa rasuulka la weydiinay alayhi salaatu wasalaam maadaama waxay ku socday ilaahay baan uga soo jawaabay waxa lagu yiri rasuulka ilaahay yahuudda iyo nasaarada iyo dadkaas waxay ku weydiin doonaan أما سي مسلمين تبع بشداسي النبي عليه الصلاة والسلام ودح جوجي وحي كويدين دونا وحلو حلالية وحي كورن دونا محن لو حلالية الرسول عليه الصلاة والسلام وحلو حلالية وحكسه كوي إلهي وحلو واحد كنت لاهضا وحليدين حلالية وحيابها وناكسن هل كان محن فقط هذا مركع وحو هدي وناكسي هنا وحال هدانو وناكسنين وحاران سؤال شاطر ماشي تعال waxa weeye ardayo aqligaaga ballanka casho qaadku ma wax wanaagsan baa mise waa wax xun wixii ku soo baxa adigu inuu xaraan yahay inuu xalaal yahay go'aankeeda qaado adiga iyo garashada waxaynu galeynaa gabayga hadaba isciil kaambigu waa calooliyo waa qofka oo ka qoomoodo waxa uu sameeyay dhibaato hore u soo gaadhay oo farta dhexda ka qaniina way waa gabay gabadhii markay dhibaatooyinka qaadka iyo ciida ka badan soo aragnay rag fara badan baa gabay kaga calaalay oo dhibaatooyinka qaadka gabay ku shabahay oo gabay ku matalay oo gabay noogu soo
noogu digay oo gabay inoogu sheegay waxyaabaha qaadku inoo leeyahay dhibaato. waxaa ka mid ah haddaba ninkaa magaciisa la yidhaahdo jaamac faarax jaamac aaran oo ka mid ahaa ragga gabyaaga ah. manhajka suugaan fara badan kuma laha, gabaygaas oo keliya ayuu ku leeyahay. waa gabyaan aada caan usii ahayn, laakiinse gabaygiisani cajiib mucjiso yahay oo wax fara badan ka waaninaya dhalinyarta daayarta iminka bilaabaysa. waxa uu gabaygan kusoo bandhigayaa ama kusoo gudbinayaa dhibaatooyin hor leh oo uu geystay dadka qaadku jiitay ee ku ba-ay oo uu isagu ka mid ahaa laftiisu. isaga laftiisan ayuu qaadku baabacsaday. dad fara badan oo qaadku dhibaatooyin waaweyn u geystay oo uu soo joogay iyo isaga laftiisa oo ku jira ayuu dhibaatooyinkii mid inoogu sheegaya. waxa kale oo digniin iyo wacyigelin usoo gudbinaya da-yarta hadda ku hawlan cunidda qaadka, isaga oo tusaaleynaya hadimadiisa. waxaana uu yidhi, haddaba gabayga waan dul marayaa, sharaxiisa oo faahfaahsanna xiisadeenna labaad ayaan kusoo qaadana. wuxuu yidhi, calyaaliya ma jirin maalintii caado la ishelay, da-dii caana weynoo kalaad camal imoodaay, intii aan cabbayeen sigaar cayn walba u jiiday, waa taa gafuurkii cadyaheen caws matalayaay, jidhkaygii camoodhaha noqdiyo camalkan doorsoomay, camankaa ijiitiya ilkahan wada ciyaaraya, carabkayga iyo foolashaan kala cillayaay. dadkana wixii carruur ii yiqiin way cajabayaane, afartaa isciilkaambi iyo cabasho waayeel dheh, kuwa haatan caashaqay war ay ku cibro qaataan dheh. caydiidba waa wuxuu ku nacay caataduu baday, ragguu caarayuubaha la dhacay carashba waa koowe, cismaan haamay ciisow gamaax culimaduu laayay, oomaar baan siduu ugu cartamay cidina moogay, ciridba uga hadhay guusihii ciidanka ahaay, siduu ina ciyaalla u galaa ciilku dilayaay. car eedaya aniyo suur indhahan caadkana la moodo, afartaana isciilkaambi iyo cabasho waayeel dheh, kuwan haatan caashaqay waray ku cibro qaataan dheh. imisuu cadrada seejiyey oo curadadii waayey, imisuu nin caaddaa u baxay hoosu soo celiyey, imisuu nin caanaha ka qubo cuudna dhaqa waayey, calqaskaa intuu ugu riday ee ciil la hoganaysa, anuunba iscanaantay haddaan caalamkaba eego, inta haatan ciiraysa baan cidina koogayne, afartaana isciilkaambi amuuddaa ka badan geesigu dilay careefowe, afartaa isciilkaambi iyo cabasho waayeel dheh, kuwan haatan caashaqay waray ku cibro qaataan dheh. yaa salaam. waa cadowga diinta iyo sharciga caynaduu yahay, waa cudur la soo iibsadiyo caafimaad li-i, curuuqaha jidhkaagoo dhan buu caajis geliyaa, wuxuu kaa cileeyaa halkii aad ku cigan layda, nin calaashigiisaa badsade shilinka caydhowye, curubtiisa ruux laasimaa wuu calaacaliye, cunidiisu waa qaadiriye caynka waalida eh, ciladiisu badan ah maxaa ceebdhe xoganaysa. afartaana isciilkaambi iyo cabasho waayeel dheh, kuwan haatan caashiqay waray ku cibro qaataan dheh. cawarna walba daabaan idhaa camalna waa kii, casarkii markuu soo dhacaan dib u caddeeyaay, caqaar iyo mijini waa waxaa caynkanii galay, caqli daraniyaa sow mar uun cawda uma gooyo buuri. wabilaahi tawfiiq. halkaasaan ku daynaynaa kulanti dambe oo xiise leh. waxaa inoo ballana xiisadaheenaas ardaya inaad ka faaidaysataan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.